inkastoo ujeedadiisa sanad ka hor lasii iclaamiyey haddana waxaa la sugayay ilaa iyo Elizabeth u dabaaldegayso 21 jirkeeda waa markii uu si rasmi ah loo shaaciyay xiriirkooda guur. Amiir Philip waxa uu nashqadeeyay faraati uu marwadiisa u xidhi lahaa oo ka samaysan macdanta diamond iyo macdano kale iyadoo oo laga sameeyay dhagaxaan hooyadii Amiirad Alice uu ka dhaxlay. wax yar ka hor guurkooda Amiir Philip boqorada hooyadeed waxa uu qoray fariin uu ku sheegayo in uu jacayl xad dhaaf ah oo aan la qarin karin uu u qaaday. lamaanaha waxay isku guursadeen Westminster Abbey iyadoo xafladda guurkooda ay goobjoog u ahaayeen 2,000 oo qof 2 sano kadib markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka xilli uu weli dalka Britain la liicayo saameyntii dagaal. xafladda arooskoodu waxa ay ahayd dabaaldeg dhif ah oo xilligaasi ka dhacay. amiirku waxa uu xafladdaasi ugu yeedhay sawir qurux badan oo wax badan ka bedelaya xaaladii adkeyd ee aan soo maray. sanadkii xigayna waxa uu dhashay wiilkoodii ugu horeeyay Amiir Charles, kadibna waxa uu dhalatay gabadhooda Anne. Amiir Philip waxa uu heerar kala duwan ka gaaray ciidamada badda isagoo oo qoyskiisana waqti kula qaatay Malta xilli uu ka tirsanaa ciidamada HMS oo dagaalkii labaad ee adduunka howlgelayay. waxayna qoyskan dhalinyarada ah fursad u heleen in ay ku noolaadaan nolol caadi ah iyaga oo sawirro iyo muuqaallo isaga qaaday iyaga oo isku faraxsan waqtina kula qaadanaya jawi degan oo ka baxsan qasriga waajibaadka shaqo. lamaanaha oo fiirsanaya sawirrada arooskooda xilli ay ku jiraan bilaha hore ee guurka oo ay ku sugnaayeen Romsey iyo goobo kale bishii Noofambar 1947. arrimahaasi oo dhan waxay isbedeleen 6 February 1952 xilligaasi oo uu geeriyooday boqor George VI. boqorad Elizabeth xilligaa da'deedu waxay ahayd 25 jir halka Amiir Philip ay da'diisu ahayd 30 jir. waxaana ay ogaadeen in Amiirad Elizabeth ay noqonayso boqorad waxayna rajeeyeen in ay helaan dhowr sano oo ay ku sii noolaadaan noloshooda caadiga ah ee u gaarka ah. dhayg ahaan xaaladda iyada oo ku soo biirtay waxa ay ku qasabtay in uu ka tanaasulo himilooyinkiisii uu ka lahaa ciidamada boqortooyada ee badda. ninka maraakiibdan amri jiray in si kadis ah loogu celiyo door taageerid ah ma ay ahayn mid sahlan. waxaa xusid mudan xilligaas oo ah 1950 oo ay naadir ahayd in la arko say ay xaaskiisu ka sarreyso boqorada ahna hooyada da'da yar. waxay ku qasabtay in ay soo horumariso doorkii ay u dhalatay ee boqortooyo.